Sidee haweeney Ruush ah uga badbaaday 8 sano god ku yaal Karnataka? Hindiya waxa ay cuntay, sida ay u nooshahay, iyo sababta ay u dooratay duurjoogta. Sheeko mugdi gelisay xadka u dhexeeya cibaadada ruuxiga ah iyo badbaadada. Haweeney 40 jir ah oo Ruush ah oo lagu magacaabo Nina Kutina, oo maxalli ahaan loo yaqaan Mohi, ayaa la ogaaday inay ku nooshahay godkayn iyada iyo labadeeda gabdhood ee degmada Karnataka ee Uttarakhand. Iyadoo qaar badani ay maanta ku riyoonayaan inay ka baxsadaan qalalaasaha magaalooyinka metro iyagoo u guuraya tuulooyin nabdoon ama guryo beereed oo deggan, Kutina ayaa u hanqaltaagaya fududaynta heer aan caadi ahayn. Waxay dooratay aamusnaan oo keliya waxay dooratay goosasho dhammaystiran, iyadoo dib ugu guratay god ku yaal buuraha Ramatirta ee u dhow magaalada Xajka ee Gokarna. Godkaani wuxuu u adeegay sidii gurigooda, macbadka, fasalkooda, iyo jikada, qayb ka mid ah safar 8 sano ah oo ay qaabaysay kalinimada iyo cibaadada ruuxiga ah. Imaanshaha Hindiya 2-1-6 ee fiisaha ganacsiga waxay sii joogtay xitaa kadib markii uu dhacay 2-1-7, iyada oo la qabsanaysa falsafada Hinduga iyo qaab nololeedka xusuusta jiritaanka hore ee bini'aadamka, u dhow dabeecadda oo lagu hagayo iftiinka qoraxda lagana xayuubiyo casriga ah. Ruusiya ilaa Ramatirta, sida ay uga badbaaday 8 sano godka. Badbaadada Kutina ma ahayn shil, waxay ahayd natiijada qorshaynta miyirka leh iyo edbinta maalinlaha ah. Waxay kaynta ka dhigtay gurigeeda, godkana waxay ka dhigtay hoy, iyada oo ku tiirsan walxaha dabiiciga ah halkii ay ka ahaan lahayd waxyaabaha casriga ah. Koronto ma jirin, telefoon ma jirin, buuqna ma jirin. Hase yeeshee muddo ku dhow 10 sano, waxay ku guulaysatay inay ku noolaato nolol habaysan, nolol waara oo gabdhaheeda ah, iyada oo dhisaysa adduun lagu qaabeeyey ballanqaad ruuxi ah iyo adkaysi wax ku ool ah. Xitaa inta lagu jiro xilliga dayrta ee adag, waxay horay u sii diyaarisay kaydinta cuntooyinka qalalan iyo habaynta godka sahayda muhiimka ah. Waxay la qabsatay deegaanka, iyada oo adeegsanaysa baco ay gogosha ku seexato iyo xaabada ay wax ku karsato. Mas-uuliyiintu waxay xuseen in habaynta badbaadada la habeeyey, baco, qalabka jikada ee asaasiga ah, iyo meel bannaan oo loo qaabeeyey ku dhaqanka ruuxiga ah. Waxa ay cuntay iyo sida ay u qaabaysay nolol maalmeedka. Cuntooyinku waxay ahaayeen kuwo fudud oo inta badan aan la baabi'in, bariis, lentil, baasto degdeg ah iyo midho marmar ah oo lagu ururiyey gudaha. Biyaha ayaa ka yimid ilo dabiici ah, waxaana lagu maydhay biyo-dhacyada u dhow. Kutina waxay maalin walba ku qaadan jirtay hawlo habaysan, yoga, ku heesida mantra, heesida rinjiyeynta, akhriska, iyo caadooyinka ruuxiga ah. Hawlahani waxay beddeleen dugsigii caadiga ahaa ee gabdhaheeda, iyaga oo sawiraya caadooyinka afka iyo barashada hal-abuurka ah. Godka gudaha ee gudaha waxaa lagu qurxiyey buugaagta luqadda Ruushka, sanamyada Hinduga, iyo sawirada ilaahyada sida Rudra oo ka tarjumaysa iskudhafka Kutina ee cibaadada ruuxiga ah iyo hiddaha dhaqameed. Inkasta oo gobolka uu caan ku yahay masaska sunta ah, duurjoogta, iyo dhulgoyada soo noqnoqda, Kutina waxa ay ku adkaysatay in iyada iyo gabdhaheedu ay dareemeen ammaan. Waxay si caan ah ugu tilmaantay masaska duurjoogta ah inay yihiin saaxiibadood, iyadoo ku andacoonaysa inaysan weligood waxyeello u geysan iyada oo laga cadhooday mooyaane. Maamulka ayaa la yaabay sida qoysku ula noolaayeen dabeecadda iyada oo aan waxyeello loo geysan. Lagu helay nasiib, laakiin maaha qorshe la'aan. Nolosha qoysku waxay soo ifbaxday uun markii bilayska deegaanka oo gaaf wareegayay aagga ay dareemeen calaamado muujinaya inay ku nool yihiin kaynta. Kormeeraha hoose ee Gokarna Sridhar Sir ayaa sheegtay in Kutina ay gabdhaheeda u ilaalisay jawi wanaagsan oo nabdoon. Kormeeraha guud ee bilayska Narayana ayaa xaqiijiyey in haweenaydu ay si taxadar leh u diyaarisay badbaadada xilliyada cimiladu adag tahay, iyada oo la yaab ku muujisay sida ay ugu adkaysanayaan xaaladaha dabaylaha adag. Go'aanka Kutina ee ah in uu ku noolaado kaynta ma ahayn mid quus ah balse waa daacadnimo. Nolosheeda godku waxay ahayd muujinta isku-duubnida ay aaminsan tahay Hinduga, ka goynta sawaxanka adduunka casriga ah, iyo socdaal ujeedo ruuxeed iyo mid hooyonimo. Sheekadeedu waxa ay soo bandhigaysaa muuqaal naadir ah oo qarsoodi ah oo lagu eegayo nolol fudud oo dhammaystiran, oo lagu dhisay rumaysadka, dabeecadda, iyo rabitaanka aadanaha si uu ula qabsado, si maqaal hoosaadyo ka duwan.